nabad korkiina ha ahaato ku soo dhawaada Dalsoor waxaan hawada ku jirnay ama aan shaqaynaynay muddo bil ah waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo halkan daawadayaasha Dalsoor sida diiran ee aad noo soo dhaweyseen waxay taasina tustay in baahi loo qabo warbaahin madax bannaan oo u adeegta bulshada Soomaaliyeed hawl walba marka la bilaabayo aad bay u dhib badan tahay khaladaad badan oo naga dhacay way jiraan taya ahaan sidii aan rabnay ma nihin tirada barnaamijyada aan gelino way yar yihiin waxa soo dhan waxaan rabnaa inaan haduu Ilaahay yiraahdo kor u qaadno kuwa badan oo idinka mid ah talooyin badan bayna soo siiyeen tusaale khaladaad aan sameynay bay nala saxeen marka aad bay ugu mahadsan yihiin laakiin barnaamijyadii aan sameynay muddada bisha ahaan hawada ku jirnay waxaad muddo aad baa loo xiiseeyay gaar ahaan hooyo cadar ayay Soomaaliyeed oo gaari xamuul ah ku wada tuulada Xariirad Fawsiya oo kale hooyo 3 caruur haysato oo fuundiyad oo Kismaayo ka shaqeysa caruurteedana muruqmaal ku korisa sidoo kale aad baa loo soo dhaweeyay barnaamijyada aan jimcaha soo gelinay culimada iyo wacdiga gabayada oo kale aan soo gelinay hadda iyo barnaamijyo kale oo arrimo bulsho sida Hargeysa oo kale sida ay hadallada u helay og yihiin in naanaysaha u bixiyaan xalwada oo kale oo ay Soomaalidu jecel yihiin marka kulay sidaan filaynay si ka fiican baa naloo soo dhaweeyay aad baad u mahadsantihiin daawadayaasha ugu badan waxay naga soo booqdaan Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxa ku xiga Kenya Nairobi Mareykanka Sweden iyo Ingiriiska waxayna u badan yihiin dhalinyaro kulay waxaan rajaynaynaa haduu Ilaahay yiraahdo in aan tayada barnaamijyada aan sameyno iyo tiradaba kor u qaadno fadlan wixii talo iyo tusaale ah noo soo gudbiya waad mahadsantihiin